wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise ayaa soo gaaray magaalada Minneapolis markii uu ka soo degay gegada diyaaradaha caalamiga ah ee magaalooyinka mataanaha ah waa Minneapolis St. Paul International Airport halka ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyadda Puntland wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay sababta uu yimi isla markaana waxa uu u mahad celiyay dadkii halka ku soo dhaweeyay marka ugu horreysay Ilaahay baa mahad iska leh midda labaad waxaan salaan iyo bogaadin aan u soo jeedinayaa dadka sharafka leh runtii oo igu soo dhaweeyay Minneapolis airportkeeda internationalka ah waxaan leeyahay ciise sharaf Allah ina siiyo baada saxaafadan aad iyo aad baan u salaamayaa haddaan soo koobo socdaalkayga waxa weeye waa safar shaqo weeye safarkaas shaqo wuxuu qaadan doonaa ilaa 2-3 maalmood soo socda insha Allah waxaana la yiraahdaa waa mashruuc weyn oo la yiraahdo JBLG baa la yiraahdaa mashruuc runtii aad iyo aad wax u taray ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan Puntland waa maartay aad iyo aad wax uga taray dholal badan runtii marka safarkaas shaqaan u imi meesha insha Allah aad iyo aad baan idin salaamaya runtii caawa halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Professor Abshir Aw Yuusuf oo ah wasiirka waxbarashada dowladda Puntland oo shaqo u yimi Mareykanka la xiriirta waxbarashada iyo hay'ado kala duwan waxaan idin sheegaynaa habeenka sabtida insha Allah waxa jiri doonta casho sharaf loogu talagalay wasiirka oo ka dhici doonta Ramada Industrial Boulevard Ramada ka dhici doonta marka waad ku casumantihiin waxaan jecel lahay insha Allah in wasiirka aynu soo dhaweyno wax badan oo macluumaadka oo aynu u baahanayna waynu ku kordhinayaa wasiirka ayaa ka qayb gali doona shir ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen Puntland Diaspora Forum oo loo yaqaan PDF shirkan ayaa sanad walba waxa uu ka dhacaa caalamka sanadkan ayaa waxa lagu qaban doonaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka shirkan oo looga hadli doono arrimaha federalismka iyo dimuqraadiyadeynta iyo nabadgelyada Awil Nuur Shire warbaahinta dowladda Puntland magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka